بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وعنب عبد الرزاق علي دمانتي ولادي كسو دواد يوتيوب جنال كيغا بإذن الله الكريم وحارو عاونان إذن لبداغو جابتر 2 غانا لتريج ريفيو سيدا ugu sahlan ugu fudud jabtar 1 concept guud aku soo sameeyo kala waxa ku soo sameeyay asina jabtar 2 waxaan rajeynayaa inaad si fiican u fahmi doontaan aadna ka bogan doontaan sida jabtar 1 ugu bogateen oo kala بإذن الله الكريم waxa kala rabaa inaan idin sheego literary review inuu yahay mid aad iyo aad u sahlan marka loo fiiriyo jabtariska kale حتى أنت بدن إنسان ديرة ملا صار أو لكن جامعة بيكل دبين هين قال لين قالوا كل دبين هاي وحان فيديو أنا مكلب كان أساس من سود وجوه بنا أسلي كرو أرديد بيكفهم كران وين كود فائدة سن كران نسيت كل هذا كونسبت وجود كبيح وحواي إن هيك شو أما إن وحواي لتريج ريفيو وحدد إن دديو غرو قري إن عبارة هذا كله إن فرقية وحيابها كل دبين تين حتى إن سامين جوني مكانه سو قفك وحيابها هذا كل دبين تين هذا نقعدن كرتا رسيت كأجن بارت وين كلهن أو related أو جوني ملاهن رسيت بيبر كاغسو كل ملاهن وحنا كوجو فيلن articles آدي وجودو إن عبان كاغا إن قادتي أنت كان كلب كان بصفي عن كذا بقول دونتا أنا وحن إذن لبداجة وحتى هالسيد الله قر وجسهلا إن عن إذن سوء عن إذن لبداجة أسعر ضيعان لمانتي نسود بهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ولا لدي لمانتي نسود بهذا وحروانا إذن لبداجة جبتر 2 سفرود أو سهلا توكتور صوص ميني نقل جبتر 1 كاسمر وصوص ميني أنتوا كوين جبتر 2 بإذن الله الكريم وحرجنا واحد كفايدة سندونتين أنا كذا فايدة دونه جبرتوه هذا واجبت ريسك أنت القراءة وح وفض واي حدني أسوء وفض وحال رو إن نقطه وح وبضن إلى القراءة مركز إن شاء الله بإذن الله الكريم وأرك دونا جبتر كان مركز جود قلنا سوء فيديو سهلين هاي أنتوا كوبين هرت شنطة واي مرة قارو حلقة مركز كن ردات عملت هاي قارة وحكري وكونسبتوال فريمورك وحلقة مرة قارنا إمبريكالك وحياة قار لقطه لكن أنت وجبنا أنت لا قر أنت واي أنا تارجت كي وحوي مهمة إن قابك قرالك وحنا فهنو مركب بيد الله الكريم سيد وجس هلن وفض أو سمين كرنا أو قري كرنا واي أو فضانا لما أنتنا مركو حرجنا أنا واحد بدن كفايد دونه حضنا وحاروا أنا جود قالوا إن هرت جبتر كلمة جيس وحالها literature review وأنا جبتر كنا لوات markuu ugu horreysay waxay noqonaysaa introduction kadib variables kaaga objectives waxa u qaatay explain gareyne kadib marka explain gareys waxa kale oo sameynaysaa conceptual framework asna waxa waa hada koorna si gooni soo sameeyay insha Allah marka practical sameeyna hadana waa ku soo celin doonaa chapterka amaastirna practical soo sameyn doonaa sawir waa concept guud ka bixinaya objectives kaaga variables kaaga wax inuu soo kooba empirical study-gana waxa waaye study la sameeyay kadibna result laga soo saaray positive iyo negative waxa ay noqotay inaa soo qaadato article kale ama waxyaabo kale oo laga qoray oo waxaa jirto articles ka hadda maanta wax ka qorayso bodada hore soo qoreen haddana ciwaanadaada waayo marka saas oo kale positive iyo negative related ka isku leeyihiin labadaada variable theoretical kana waxa waaye ama theory waxay noqonaysaa qof shakhsi ah fikradiisa iyo wuxuu ka dhahay waa marka dad kala duwan fikradahooda laakiin empirical ka as result ya loo bedelay marka biidni ilaahi alkariim intaana waxaan noqon doono chapterskeena introduction ko kale marka la qoraayo waxa la sameeynaa waxay tahay introduction asameysanayso introduction waa wada fahmayna waxa ku muujinaysaa inaad qorayso chapter 2 oo ku yahay kadib waa qabanaysaa wax yar oo sharaxaad waxa ku darsanaysaa inuu ku yahay sheegaysa chapterkan waa chapter 2 wuxuu ku saabsan yahay ciwaankeyga hebel adaa marka sameysanaysid si yar oo fudud oo simple ah waxa sameysanaysaa introduction-ka soo kale introduction waxa kale oo sameyn kartaa inaa ciwaankaaga ciwaan u eg ama article aad ka qortid marka aad u sahlan yahay oo fudud yahay chapter 2 waa chapters wax u fudud taa inta badan dib loo dhigaa 1 iyo 3 la qoro wax gooni oo saameyn oo gooni mooto ama adeeg marka xataa oo buuga la difacanayo kala conceptual framework kaliya laga qaataa marka chapter oo saas wax weyn oo muhiim ah maahan laakiin haddana waa muhiim inaad baratid wadada loo marayo qaabka loo qoraayo waa wax ku yaalo steps kon kamid yahay literature review-ga intaanu ka kooban yahay aad iyo aad u sahlan yahay variables explanation ka hadana ku xijiyo variables ka markii la explain gareynayo ama explanation lagu sameynayo aad iyo aad u sahlan yahay waxa ku explain waxa sameynaysa waxa explain gareynay afarta ama saddex objective qaata inta badan saddex la qaataa afar qaadan kartaa shan qaadan kartaa laba qaadan kartaa laakiin inta u qurux waxaas dhigi kara waa ani ahaan afar ilaa saddex aad iyo aad u qurux badan afartas objective saddex objective qaatay waxa ku sameynaysa explanation oo kala dhigan definition kala duwan
wax walba oo ku saabsan variableskaas aa qaadatay objectiveskaaga aa qayb u dhigaysaa si fiican u qeexaysaa kadib mid walba empiricalkiis theoreticalkiis waa ku xijinaysaa conceptual frameworkgan waa hore usoo sheegnay sawirkan insha allah video kale ayaan idin tusi doonaa hadda waxaa rabaa sahlan u fudud yahay dhammaantiin inaad wada aragtiin inta oo kooban yahay horta intaan waa maka baxaayo saa isleeyahay intaa kusoo arkaba inta wax ayaa soo qoraynay aan hadda wax saas manii dheeri same leenahay waxyaraa laga yaabaa marka insha allah biidnillahi alkariim waxaan rajaynaynaa si fiican u fahanay aana wada fahmi doono guideline-ka oo dhan ama inta instruction aa maraysa horta waa intaan ka badan ma isdhahay mana u maleynayay empiricalkan aad iyo aad u fudud yahay meelaha laga heli karo articleska markii lasoo gaaro methodology-ga camal inta badan waxaa laga helaa meelaha hoose resultyada aa laga helaa theoreticalkan aad u sahlan yahay waaba arkaysaa qof fikradiisa camal ama citationka ayaa aad iyo aad loogu tusaa waa fahmay inuu theoretical yahay sidoo kale insha allah waxaa kasoo sameyn doonaa oo aad iyo aad noogu sahli doono ama noogu fududeyn doono markaa kasoo sameeyo insha allah waxaa kasoo sameyn doonaa asoo asee practica si inoogu sahlnaato noogu fududaato inta instruction la maraayo intaan leewaaye chapter 1 ilaa iyo wuxuu gaaraya 7 xabo maasha allah arday aad iyo aad fara badan ayaa daawatay arday aad iyo aad fara badan ayaa wax badan ka faa'iiday chapter 2 waxaa rajeynaa in ka badan wax ka faa'iidi doonto fahmi doonto ugu yaraan inta page laga qoro waxaa way ku dhawaad 20 page ama 18 page inta kale 6 7 8 10 camal laga qoraa laakiin asi wax ugu badan wax loo siiyaa waxay tahay dad badan fikradahooda dad badan waxyaabo ay qoreen waxyaabo kala duwan intaas ayaa waxaa sababta loo siiyaa tahay chapter 2 ama loo fududeeyay ilaan mar walba waxaa adi sameysata ma sameynayso waa soo xiganaysaa le waa soo xiganay wax walba oo ku saabsan cibaankaaga ama variablekaaga waa waxa sababta looga dhigay ka mid tahay in waa sababta looga dhigay ama la dhahay wuu sahlan yahay kuwa kale chapters kale oo inta badan dib looga dhigo marka insha Allah biidnillahi alkariim waxaan rajaynayaa videogan idin ku dheereenin oo chapter 2 inta uu ka kooban yahay sida uu sahlan yahay aad fahantiin shantan xabo inta badan ma ka dhex baxo ima inuu secondary yahay inuu primary yahay mararka qaar primary secondary waxaa ku kala duwan yihiin jirto laakiin misdaha chapter 2 ni wax ku kala duwan yihiin umaleynayay secondary inta badan waxaa laga reebaa saslaha conceptual framework marka insha Allah biidnillahi alkariim waxaan rajaynayaa inaad ku faa'iidi doontaan wax badan كبد فائدة دونه بإذن الله الكريم وحرجينا إنه الله سبحانه وتعالى ما أنت نوفق قبل وقود جرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.